السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داودyaal halka aad naga daawanaysaan waa channelkeena Somali Media Production. maantana waxaynu idin wadnaa cashar cusub kaasoo aynu ku hadli doono salaada iyo fadhigada ay leedahay. ku soo dhawaada mar kale barnaamijkeena maanta. salaadu waa rukn muhiim ah kaas oo ka mid ah rukniyada islaamka. waana shay qof kasta oo muslim ah markasta laga baahan yahay, sababtoo ah qof kasta oo muslim ah waxa uu doonayaa inuu u dhowaado ilaahiis khaaliqa ah, kaas oo u abuuray inuu tukado gutana waajibaadkiisa cibaadada. salaadu waxa ay ka mid tahay waxyaabaha maalinka yowmulqiyaame laiska fiirin doono ama laiska eegi doono. qof kasta oo muslim ah waxaa ku waajib ah inuu ilaaliyo waajibaadkiisa kaga aadan salaada. waxaad ogaataa in ay salaadu tahay waxyaabaha qofka bini'aadamka ah ay noloshiisa ku badbaadi karto, sababtoo ah salaadu waxa ay kaa fogeynaysaa wax kasta oo xumaan ah, waxa ayna kuu soo dhoweynaysaa wax kasta uu allah subxaanahu wa tacaala uu raalli ka yahay. waxyaabaha qofka tukada salaada uu kaga duwan yahay dadka kale waxaa ka mid ah: 1. qofka tukada salaada wejigiisa nuur ayaa ka baxa iyo iftiin kaasoo allah subxaanahu wa tacaala uu ku manaystay. 2. qofka tukada salaada ma caajiso. 3. qofka tukada salaada waxa uu qabtaa mar walba camal wanaagsan. waxaan idinula dardaarmayaa inaad noqotaan kuwa ilaashada salaadooda markastana jecel inay u dhowaadaan rabbigooda khaaliqa ah. sidaas iyo ammaano allah.